مسؤولينta gobolka Saaxil madaxda hay'adaha dawladda ee kala duwan salaadiin cuqaal iyo waliba dadweyne aad u tiro badan ayaa saaka barqadii waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka Saaxil Xamed Xuseen Cabdillaahi oo u dhawaanta madaxweyne Axmed Maxamed Silaayo gobolka Saaxil u soo magacaabay mas'uulkan ayaana aad ugu mahadnaqay dadweynaha iyo mas'uuliinta kala duwan ee sida balaaran u soo dhaweeyay waxaanu ballan qaaday inuu si cadaalad ah gobolka iyo dalkaba ugu shaqayn doono maantii waxaan idin marka hore idinku doorinayaa nafteena fiina cabsida Ilaahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waqtiga ballaaran ee uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Xamed Xuseen Cabdillaahi salaadiinta uqaasha madax dhaqameedka fanka siyaay boqorada malaaqiyada jiif caaqilada dhammaan waxgaradka la socdaayaan marka hore aad ugu mahadnaqayaa intaa kadib waxaan mahadnaq labaad u jeedinayaa dadweynaha reer Saaxil ee aan u kala hadhin soo dhaweynta gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil ee maanta halkan ku soo dhaweeyay 10 bisha 13 waxaanu joognaa tuulada barwaaqo ee bariga berbera u dhaxaysiya burxiyo berbera imikana waxaanu tagaynaa magaaladii halkaasaynu xafladda ku qabsanaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha Xamed Xuseen Cabdillaahi nuur si ugu mahadnaqo xafladda aad iyo aad baan idin mahad celinayaa waana cadaalaya waana xusoon waana sharaf waana ilaalin saasaynu kala gudoomiyaha السلام عليكم ورحمة الله. halka joogan guriga kala jabiyay inta berbera ka yimaadeen soo dhaweynta gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil loo doortay cusub soo dhaweyntiisa qiimaha weyn oo soo yeelay isaguna weydii kama hadlay anagoo la socodna weydii ma hadlay waxaan idin xasanaadka miisaanka Ilaahay inuu ku daro midicda iyo dadaalka u soo sameeyeen anigoo ah gudoomiyihii حامد ويسبرن دولتان وانا ولا مولان دولتان وانا ولا شيء دولتان ان شاء الله ان شاء الله هذه aad baan ugu mahadcelinahay baa mahad oo dhan iskale dadweynaha halkan ugu soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka iyo waftiga la socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna ajariyaada idinka siiyo ilaahay isagana hay magaalada ugu waaray ka shaqeeyo وانا كل رجينا الله توفيق waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Xamed Cabdillaahi Xuseen waxaan ku leenahay Xamed ku soo dhawow gobolkaagii your home ayaa timi si fiican baan ku soo dhaweyn waxaan qabaa gobolka Saaxil inay ku haraardanayd oo wax badan ka qaban doonto insha Allah bidnaahi kariim ilaahayna kugu guuleysiyo ku soo dhawow gobolkaaga wassalaamu calaykum waxaan leenahay haddaan shacabka reer berbera ku soo dhawow gobolka Saaxil ku-xigeenka cusub ee gobolka Saaxil loo soo magacaabay waxaan leenahay xil weyn baa sugaya ilaahay ku Allah ka yeelo waxaan leenahay Xamed gobolka Saaxil waa gobol jahan oo gobol wax badan aad ka qaban doonto bidnaahi kariim dhalinyarada iyo waayeelka iyo haweenkuba Axmed Diiran bay ku soo dhaweyn doonaan bidnaahi kariim ku soo dhawow assalaamu calaykum waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi dadweynihiina sharafta leh qiimaha leh iyo maamulka wixii joogay maamulka jooga kuway naga maqan iyo inta joogtaba dadweynihiina reer berbera ee sida fiican loo soo dhaweeyay ee qiimaha leh aan la koobi karin aan cidina sheegi karin sida loo soo dhaweyseen aad baan idinka mahadnaqaynaa hadda reer berbera waxa kaloo maanta waxa weeye xafladii waa sabtida wixii hadalkayga kulli xafladaan u dhiganayaa ininkana aad baan idinku mahadnaqayaa waxaanan ballan idinka qaadayaa inaan cadaalad iyo sinaanshiyo iyo gobolka inaannu si fiican aniga iyo maamulkayga anigoo la kaashanayna aanu si wanaagsan inuu la shaqayno aan waxna inay la qabanno saxaafadda aad baan iyagana ugu hambalyaynayaa si fiican waan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee hawlgalkooda u gudanayaan waayo sababtoo saxaafaddu waxa weeye horsocodka dalka waa waxyaabaha isku xidha dalka qiimihiisa iyo isku xidhka haweenka Soomaaliland waxaan doonayaa reer berbera haddaynu nahay inaynu jaha qura wada yeelano jaha qura oo dhinac u wada jeedsano oo is wada raacno
sidaasaan reer berbero idinkala idinku codsanayaa waxaan kaloo idinku darayaa wixii aad garan weydaan reer berbero dabadda yaanaynu iskaga sheegno hortayna ha la yskaga sheegno waxaan kaloo idiin sheegayaa maanta waxaynu u baahannahay inaynu noqonno dad dhinac u wada jeeda horumar wada leh isku mida sidaasaynu ku gaadhaynaa horumarkeennii iyo gobolka horumarkiisii sidaasaan idinka codsanayaa iminkana waxaan ku soo gebagabaynayaa sidaasaa ballayno ah sida aynu maanta iskugu xidhannay inaynu weligaan iskugu xidhnaanno